haddaba sheekooyinka doorashooyinka marka aynu dib ugu laabano faa'iido mise khasaare muxuu hadda gacanta ku hayaa Siciid Cabdulaahi Dani. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa kaalinta saddexaad ka galay doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee bartamaha bishan ka dhacday magaalada Muqdisho. Wuxuu ku jiray dadkii loo saadaalinayay xukunka dalka, laakiin xisaabtii uu isticmaalay iyo midii xamar taalay ayaa kala duwaneed. Dani wuxuu haystay qiyaas marna sax ahayd marna khaldaneyd. Wuxuu fahamsanaa in isaga iyo Farmaajo wareegga koowaad ay hogaamin doonaan, kadibna labada xigta ay tanaasuli doonaan, markaas kadibna codadka mucaaradka oo dhan isaga xaggiisa ay soo mari doonaan. xisaabta Siciid Dani marka doorashooyinkii hore la waafajiyo waa ay saxneyd, laakiin wuxuusan akhrin in midowda musharaxiinta mucaaradka ay ku heshiiyeen in midkooda codadka ugu badan helaa la xoojiyo. Isaga kama tirsaneen golaha midowda musharaxiinta oo fadhigooda uu ahaa Hotel Jazeera Muqdisho. natiijada Siciid Dani waxaa laga fahmay inuusan wax olole ah ka dhex samayn maamulada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo dadka kale ee reer waqooyiga ah. codadka uu haystay waxay ahaayeen kuwii Puntland iyo Jubbaland oo qaar ay baxsadeen. Dani wuxuu u muuqdaa nin gaaray qaar ka mid a waxyaabihii hadafku u ahaa ololihiisa, qaarna gaari waayey. Siciid Dani wuxuu bixiyey Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Horey wuxuu u sheegay in uu garab siin doono cid kasta oo ka shaqeynaysa in Farmaajo meesha uu ka baxo. Siciid Dani inkastoo xukunka uu qaadan waayey, haddana wuxuu abuuray fursad reerkooda ah oo la xiriirta doorashada 2026. haddii uu Farmaajo xafiiska kusoo noqon lahaa, waxaa hoos u dhici lahayd fursadaha beesha ay labadoodu kasoo wada jeedaan ee doorashada dambe 2026 hadduu eebana gaarsiiyo. Dani hadda waxa uu ka tegay magaalada Muqdisho iyadoo fursado badan ay abuuran yihiin. dhinaca kursiga ra-iisul wasaaraha, tani waa fursad ay weli su-aal saaran tahay. waxaa la warinayaa in Siciid Dani uu jeclaan lahaa in ra-iisul wasaare uu noqdo, waa rabid uusan qofna dafiri karin. lama hubo in Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbali karo in Siciid Dani uu u noqdo xilligan ra-iisul wasaarihiisa, laakiin xitaa haddii Dani aan la siin kursigaas, wuxuu talo xoogan ku yeelan doonaa qofka imaanaya iyo sida uu ku imaanayo. inuu ra-iisul wasaare helo waxay kusii hayn kartaa fooqa sare ee damaciisa 2026, laakiin waa nin aad u kulkulul, waxaana laga cabsi qabaa xitaa haddii ra-iisul wasaare laga dhigo inay isfahmi waayaan.